asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada asxaabta. waxaan halkan kula wadaagayaa 5 qodob oo qofka uu ku horumarin karo tradingkiisa suuqyadan online-ka ah, khaasatan forex. Een, 5 qodob baan isla eegaynaa. Markaa soo dhawaada. Tradingku ma aha keliya in chart la furo ama buy ama sell la dhaho. waa nidaam, qorshe, xakameyn nafeed iyo horumar maalinle ah. baro 5 tiir ee guusha qofka u horseedi kara si uu suuqan u sii joogo. kuwan ma aha talooyin, waa nidaam rasmi ah oo tradingka guuleystay raaco maalin kasta. Qofka tradingka ah ee guuleystay 5 qodob ayuu si sax ah isaga xaqiijiyaa intaanu trading ama computer usoo fadhiistan subaxiisa hore. Markaa number 1, trading strategy. waa inuu qorshe suuqan cad uga degan yahay. waa inuu risk management cad uu leeyahay, uu kabitaalkiisa ku ilaalinayo. waa inuu morning routine leeyahay, diyaar garowga subaxii. waa inuu jadwal horumarineed uu leeyahay, jadwal cad oo uu raacayo, uu qorayo maalintii uu leeyahay. Trading journal ah. waa inuu affirmation u isticmaalo, kelmado togan oo maskaxdiisa dhisaya. qodobka 1, trading strategy. istaraatiijiyadda tradingka. istaraatiijiyaddu waa qorshaha kuu sheegaya goorta aad geli karto, goorta aad ka bixi karto, iyo sababta aad trade-ka u qaadanayso. haddii aadan istaraatiijiyad lahayn, waxaa tahay qof suuqa ku ciyaaraya, marna sell marna buy iska furaya, oo shuruudo cad oo uu ku gelayo aan haysan. Markaa oo stop loss iyo take profit midnaba aan meel u raaco iyo meel uu ka raaco toona aan haysan, iyo sabab cad oo suuqan uu ku gelayo. Marka waa inaad istaraatiijiyad cad ka leedahay suuqan, ay kuu qoran yihiin wax waliba meeshaad uga socotid, iyo qorshe cad oo suuqan aad leedahay. qorshaheena labaad, risk management, maareynta khatarta. risk management waa meesha traderka kala saarta. dad badani waxay yaqaaniin si fiican tradingka, waxay si fiican u yaqaaniin istaraatiijiyadda, laakiin risk managementiga way ku fashilmeen. risk managementiga way ku fashilmeen markaan halkaa leeyahay, waxaad arkaysaa qof haysta akoon $1,000 ay ugu jirto, oo lot size 10 lot size 5 ku furaya, lacagaan waxaa mili karayn riskigiisa akoonkiisu, oo isle maalintaa jir aad ku noqotidba halkaa trade hadduu kuu kaco ama tbigaaga uu ku aado, aad faa'iido fiican kaga dhufatid. marka aynu eegno dadka traderska ah guuleystayna, suuqan isaa uma shaqeeyo. wuxuu u shaqeeyaa faa'iido yar baa waxay dhashaa guul iyo faa'iido weyn keenta. laakiin haddii aad tiraahdid hal mar baan faa'iido fiican samaynayaa, markasta kuma sii soconayso. marka dambe mar bay ku siinaysaa, baa laga yaabaa mar labaadka oo ku siinaysaa, waxaa laga yaabaa mar saddexaadka inay aakhira kaa xidhoba, ay akoonadaada dhan istaba mariso. Marka waa inaanad markasta aanad ku khatalmin inaad lot size-kaaga lacagta kugu jirta aanad ku ciyaarin, ee aad raacdid risk managementigaaga iyo jadwalka ku qoran maalintaada. lacagtaada khatarta u bareerinaysidna waa inay mar walba ka yartahay faa'iidadaad uga socotid, oo kabitaalkaaga aad u ilaalisaa, oo aad ilaalisaa inaad offer trading qaadatid. trade hadda hadduu isl kaaga dhaco, waan trade kaloo diyaar aanad haynin, waa inaad iska daysaa. laakiin aanad oran suuqii trade-ka buu igala baxay, khasaaraan galay, waa inaan ka soo celiyaa ilow. oo aanad trade indha adayga aanad iska qaadan, oo aanad suuq ranji iskaga jira oo meel laba aan u socon aanad iska gelin. waa in yool cad uu kaaga degan yahay, oo aanad qof u socda hal trade inuu faa'iido fiican maalin 100 jibaar akoonkiisa ah aan uga soconaa tahay, qof nidaam cad oo raacayo ule inaad tahay, waa inaad noqotaa. qodobkeena 3aad waa morning routine, waa jadwalka subaxda. jadwalka subaxdu waa qodob aad u muhiima oo la isku dhaafo, oo qofkii aan haysanna uu suuqa markuu soo galaba uu caajis iyo niyad jab badan uu ka dareemo. jadwalkiisa subaxdiisa, qofkii inaanu iska soo gelin hurduu ka soo kacay, kombiyuutarkii mee ama laabtoogii mee aanu oran markiiba trade ma ku dhow yahay ama galaa xagee,
ee waa inuu nidaam cad u raacaya uu jiro. Waa inuu subaxiisa hore soo diyaariyo oo uu jidhkiisa iyo maskaxdiisaba soo dhiso. Markuu kombiyuutarka soo fadhiistana waa inuu ka bilaabo inuu maanta wax newsa iyo suuqyada wax ma ka jiraan xaaladiisa, bal suuqa newskiisa anisha mariyo wax news ahoo aniga saameyn igu keenaya miyuu jiraa. Markaad intaa iska hubisid hadduu jiro aad alarmiyo ku xidhatid waqtiyadu soo kala baxayo, haddii aanu jirinna aad hore uga gudubtid, markaad analyskaaga iyo beeriskaaga aad sii dhex gashid dee istaraatiijiyadaada iyo sii dhisatid qaabkaad suuqaaga trade uga raadsan lahayd. Qodobkeena afraad waa trading journal. Waa meesha ay u dhimato, waa meesha lagu kala tago dad badanna suuqan ay guula kaga gaadhaan, dad badanna ay markiiba uga baxaan. Trading journal waxa weeye waa qorshaha aad ku qoraysid wax kasta oo maalintaada intaad tradekaa joogtid aad samaynaysid, beerka aad qaadanaysid, waqtiga aad gelaysid, sababta aad u gelaysid. Marka aad gelaysid waxa aad dareemaysid baad qoraysaa xataa. Maxaad dareemaysaa? Ma niyad baad dareemay? Ma cabsi baad ka dareemaysaa? Ma farxad baad dareemaysaa? Wax kasta oo aad dareemaysid waa inaad waa inaad note garaynaysaa. Waa inaad stop losskaaga meeshaad dhiganaysaa ay ku qoran tahay, take profitkaaga, riskiga lacagta aad ku gelaysid. Aad leedahay "Niyow, lacagta intaas akoonkaygaan lacag haystaa, intaasaan ogolahay maanta traderkaas hadduu khasaare aadaba intaasaan ogolahay inuu igala baxo." Wax walba waa inay kuu qoran yihiin. Natiijada iyo casharka aad ka baranayso wax weeye khaladka haddii traderkaasi uu stop loss kaaga dhaco, waa inaanad iska sii socon, aad dib u eegtaa tirahdaa "Niyow, khaladku ma xaggaygu ka yimi mise waa khalad suuqa ah oo suuqa dee normalkiisa asalka u qaatay." Waa inaad mar walba wax aad raaci karaysa aad leedahay. Halkan xasuusin yaroo hoosaan traderka inoogu qoray. Traderka aan joornaalka lahayn wuxuu ku celceliyaa khaladaadkiisii hore, laakiin traderka joornaal kale maalin kasta wax ayuu ka bartaa khaladaadkiisi. Traderka aan joornaalba u qornayn dee khaladkii shalay uu soo sameeyey maba ogadii, maantana kii oo kale uu kusii celinayaa, mid kale uu kusii celinayaa, khalad kale uu sii socon. Laakiin traderka joornaal u qoran yahay, khaladkii shalay ka dhacay wuu ogyahay, wuu u qoran yahay. Waddo kaloo tii shalay ka duwan buu raacayaa oo meelo kale ka duwan buu ka gelayaa. Suuqii indho kale uu ku eegayaa. Khaladkii uu shalay galay already waa soo analyze gareeyay, wuu soo arkay wuxuu ka jira. Marka waa inaad mar walba wax kuu qoran oo dib u raaci karaysa aad haysataa. Trading journal saasaa laga wadaa. Okay, qodobkeena ugu dambeeya ee affirmation, hadalka maskaxda lagu dhiso. Waa hadalka maskaxdaada aad ku tababaraysa, aad kula hadlaysid. Qofka traderku maskaxdiisa, haddii uu maskaxdiisa degan tahay, istaraatiijiyad fiican xitaa waxay fashilmi kartaa. Affirmation, habka aad maskaxdaada u tababarto discipline iyo kalsooni. Qofka suuqa trade gareeya inta uu suuqa dhex fadhiyo, suuqa joogo oo trade gareynayo, kelmado waxaa kusoo dhacaya negative ah oo magaranaysaa isaga iyo suuqa u dhexaysa. Trade buu qaadanayaa, waxaa laga yaabaa inuu tradekii faa'iido ka qabtayba, laakiin faa'iido fiican oo markaa uu khatar waaw uu leeyahay aan ahayn, laakiin xoogaa yar buu ka qabtay. Uu dhaho "Niyow, tradekaas trade fiican buu ahaa, haddii aan lot size fiican ku geli lahaa waxaa laga yaabaa faa'iido fiican oo akoonkayga aad igu soo kicin lahayd inaan ka geli lahaa, ama payout fiican ba aan samayn lahaa." Waxyaabo noocaas markay maskaxdaada soo galaan oo negative ah, inaad markiiba ka saarto tani anigu qof noocaasa ma yihi, waxaan ahay qof nidaam cad u qoran yahay oo nidaamkiisa raacaya. Systemka ii qoran baan raacaya, marnaba kama leexanayo. Waxaan ahay qof haddii uu trade 100 pip siiyo uu $10 uu faa'iido uu ka qabto, 10kiisa dollar akoonkiisaas ugu talagalay walba inuu faa'iido ahaan intaa u qaato. Walow aan 100 pip qof qaatay $10 aan ugala baxaynba, laakiin nidaam noocaasa kale uu kugu qoraya. Mar kasta oo maskaxdaada wax soo galaan, kelmad kale oo positive aad ku celisaa. Qof waxaan ahay khatartiisa manage gareeyo oo khatarta akoonkiisa og. Qof waxaan ahay dareemihiisa iyo maalintiisa qaabka uu u dhaqmayo, suuqa ula dhaqmayo og. Qof waxaan ahay shalay qofkaan ahaa mar walba kasii fiican oo kasii dadaala oo isagu suuqa nidaamka iyo qaabka ula dhaqmayo garanaya, oo aan qof iska soo galay oo iska baxa oo marba suuqa hoos u raacaya aan ahayn. Laakiin waxaan ahay kelmado noocaas haddii maskaxdaada kusoo dhacaan, sidii aad kelmad kale ugu bedeli lahayd oo suuqa aad mar walba subquestion mindkaaga kelmad positive ah kelmadii negative ka ahayd ugu bedelaysid. Mar walba oo aad kelmad
positive ku celcelisid ku celcelisid ku celcelisid waxaan ahay qof noocaasaan ahay qof waxaan ahay wax walba oo uu sameynayo garanaya qof waxaan ahay istaraatiijiyadiisu waa tahay qof waxaan ahay meel kasta oo suuqa uga baahan yahay micnuhu ka gelaya iyo sababta uga socdo garanaya mar kastoo aad ku celcelisid kelmadaha positiveka negativeka aad ka saartid subquestion mindka wuu la qabsanaya waxaad noqonaysa adiga waxaad arkaysaa marka dambe qof activeba aba wax walba ay ku cad yihiin meel walba u soconaya marka affirmation noocaasa laga wadaa sidan ayaan isula xidhay shanta qodob ee istaraatiijiyadda cad sida ay u shaqeyso ka koowaad waa istaraatiijiyad define your entry and exit rules waa inaad og tahay meesha aad suuqa ka gelaysid iyo meeshaad uga baxaysid ruleskaaguna uu ku cad yahay managing waa inaad khatartaada aad manage garaynaysid oo aad kabitaalkaaga ku qoran yahay inaad sidan de markii horeba shanta qodob baa kasoo hadalay haddana laakiin waa isku xidhayaa waa inaad rotiin subaxeed aad leedahay oo subaxaaga aad wax walba ay ku cad yihiin waa inaad diiwaangelin ganacsigaaga aad ku diiwaangelisid journalkii aad haysataa xaqiijinta nafta waa inaad naftaada mar walba building yourself disciplinekaaga iyo shakhsiyadaada aad dhisaysaa systemkana waa systemka shanta qodob marka aan ereyaha kusoo qoray oo aad mar walba dad ku celelisid aad dhiirigelin naftarkaaga oo aad kasii qaadaysid marka aad shantan qodob si joogta u isticmaasho waxaad abuuraysaa cycle horumarin leh istaraatiijiyaddu waxay bixisaa jihada risk managementgu wuxuu ilaaliyaa kabitaalka monitoringkaygu wuxuu diyaariyaa maskaxdayda journalku wuxuu hagaajiyaa khaladaadkayga affirmationku wuxuu dhisaa kalsoonideeda shantaa erey baa wax loo dhigaa ma jirin haddaad ku celelisid maskaxdaada wax weyn aad ka dareemaysaa marka traderka guuleystay iyo traderka fashilmay qaabkay u dhaqmaan baan halkana wax yar kasoo diyaariyey farqiga u dhexeeya labada trader keliya waa nidaamka iyo dhaqanka maalinlaha ah traderka guuleystay haddaan ku horeyno traderka guuleystay wuxuu leeyahay istaraatiijiyad cad wuxuu ilaaliyaa riskiga 1% ama ka yar ama wax koonkiisa manage garanayo riski gareeyaa wuxuu leeyahay morning routine wuxuu leeyahay qorshe journal wuxuu isticmaalaa affirmation traderka fashilmana wuxuu leeyahay wuxuu tareer gareeyaa dareenkiisu wuxuu markaa uu tusayo tareer garaynayaa hadda hadduu lino maanta 100 biib baan u socdaa waxaan rabaa inaan lot size fiican ku galo oo si aan akoonkaygu uu markiiba kor ugu soo kaco wuxuu riski gareeyaa lacagtiisa tareerka lacagta akoonkiisa lacag akoonka uu qaadan tareerka uu qaadanayo wuxuu riski gareeyaa lacagaad u badan wuxuu galaa suuq isaga oo aan diyaar ahayn ma qoro khaladaadkiisa wuxuu ku celeliyaa khaladaadkii shalay wuxuu raacaa cabsidiisii iyo degdegna wuu ku galaa suuqa foomadiisa aad u badan cabsidiisa iyo magaranaysaa qaabku suuqa loo dhaqmayo